markaa tahay xiisad abuure sidan oo kala tartan caalamiya ka qaybgelaya afdheerayaashiisana wata waxaa tahay mid ceebaha markastaba iska dhowra Ole Watkins oo England geeyay finalka Euro 2024 Netherland waqtigii dhimashada ayaa laga takhalusay oo la oran jiray aakhiro lacab Rawax maskaxda Southgate oo shaqaysay isagana iminka loogu dhawaaqay أكبر كبير يا مدرب الكرة القدم في فريق المنتخب الإنجلترا وحقيق مداسنا إنجلند waxay cagta saartay finalka Euro 2024 balse waxa ka horeysa caqabad kale oo Isbeena xulka Ingiriiska ayaa gool waqti dambe wuxuu ka gaaray caana boodaha oo u muuqday mid milmay ciyaar qurux badneed oo ka dhacday garoonka Signal Iduna Park ee magaalada Dortmund England ayaana ku badisay 2-1 iyadoo finalka la ciyaari doono maalinimada Axadda kulankani oo mid si gaar ah isha loogu hayay England laga dhowrayay inay la timaado faanki iyo xaragadii faraha badneed ay ku faani jirtay kubadda cawska cagaaran gudihiisa maadaama madmadow badani galay kulamadii hore kulankani ayaa ku soo aaday xilli England la yiri Southgate wuu helay carqaladii iyo cirqi qalloocna bilowgii ciyaarta Xavi Simons ayaa ku ciqaabay qalad uu sameeyay Declan Rice kaasoo kubad si cajiib ah u laaday kana dhaliyay Pickford balse ku darso Pickford gacmo ganjeelnimadiisa iyaduna banaanka ayay timi kulankani wixii ka dambeeyay goolka laga dhaliyay laakiin saddexda libaax ayaa ka jawaabay sidii ay sameeyeen kulankii Switzerland ka hor iyadoo Harry Kane rikoodh lagu galay halkaasna uu ka dhaliyay goolka barbaraha Harry turtiisa markuu adeegsado isu qalloociyo uu yaqaan dhalinta rikoodhayaasha waa mid kaliya ku caana maalay bilada goolashana waa mid kaliya laga helo kabadhka ama armaajada gurigiisa taala oo iyadu noo kooba labada dhinac ayaa kadib sameeyay fursado badan laakiin qaybta hore waxa lagu kala nastay garba siman iyo sidii la isugu yimi walow firfircoonida cawska cagaaran lagu kala caraabay qaybta labaad sidoo kale labada xul ayaa ciyaaray weerar iyo weerar celis taasoo la isu diiday in hal xidig oo ka mid ah xidigaha labada kooxood midkoodna uu biyo cad ka cabo xariijinta garoonka dhammaadkii ciyaarta Holland waxay naawilaysay in 30 kale lagu daro gool kulaad la iska aado waa caqliga komane dhammaadkii ciyaarta markay 90 daqiiqadood kubadda dhanka midig ka keenay Cole Palmer wax kastaaba way isbedeleen xataa dibir lixii duulay ayaa bartamaha garoonka sidii daroontii duubaysay istaagay xidigan bedelka ku soo galay ayaa waxa xirada ganaaxa dhexdeeda ku helay xidigan bedelka ku soo galay ee isagu ahaa samata bixiyaha gurmadka degdega iyo ujeedkii loo keenay cawska cagaaran xilliga dambe ay ahayd oo kaliya natiijada kulankee la ismari la yahay inuu haldheeri ka noqdo ayaa go'aamiyay natiijada waa Watkins oo isagana bedel ku soo galay halkaas ayuuna goosha ku dhaliyay kuna hubsaday yiri la kala guran og la kala goosan og laguna kala calaf qaadi og xaajadu markay halkan marayso Watkins ayaana la guddoonsiiyay ciyaaryahankii ciyaarta marka tahay goole xataa hal daqiiqo aad ciyaarto qiimayaashu waxay isku raacaan inaad tahay mid ka dhabta iyadoo la og yahay in bandhig heerkiisu sareeyo ay sameeyeen Phil Foden Bukayo Saka Kobe Mainoo laakiin guddiga farsamada UEFA ayaa Watkins ku tilmaamay inuu sameeyay saameyn weyn sidaasina ay ku siiyeen maxayna hada xaqiiq fi aqliyati kala saaris واتي وصحسنيد واي نتيجتي wax ka bedelaynan kanite England waxay hadda finalka Berlin kula ciyaaraysaa xulka Leroy Spain oo iyaguna ka soo gudbay caqabadii ugu adkeyd ee dariiqad loo maro tartanka haddaba kulanka aan si gaarayso dul taagno qaybtii hore oo kaliya labada xul saddex shuud ayay tuurtay xulka wadanka Holland hal ayay ku aadisay halka ay 7 tuureen wadanka Ingiriisku afarna ay ku aadiyeen 33 kubadaysashada Holland ayaa ahayd qaybta hore halka 67% ay ahayd England 127 baas oo kaliya ayay Holland samaysay 108 ayay saxday waa dareemi kartaa halka cunaqabataynadu ka jiraan 264 baas oo Ingiriisku sameeyay 243 ayaa sax noqday taakaladu waa 7 faawaliskuna waa 4 qaybta hore oo kaliya oo waxa faawal badan Holland koornayaasha hal koorna ayaa la helay oo Holland ayaa heshay qaybta labaad markaad eegto haddaba sida xaal yahay waa tan iyaduna
gebi ahaan 7 shood ayay noqdeen tirada ay tuurtay Holland 2 kamid ayay ku aadisay halka 9 ay tuureen xidigaha England 5 ay ku aadiyeen boqolkiiba 42 ayay kubad haysashadooda guud ahayd 90 daqiiqo Holland 58 waxa ahaa wadanka England 413 baas ayay sameeyeen wadanka Holland 371 baasna way dhameystireen 589 baas ayay sameeyeen England 542 ayay dhameystireen koornayaasha wax koona ay heleen xulka wadanka England ma uusan jirin halka ay Holland heshay 3 koone sida gaarka markaynu isu dul taagno khadiidada xidigahana waa sida tan xidiga la yiraahdo Declan Rice Holland waxa uu ku sameeyay khariirada lidin muuqata 48 baas 3 kaliya ayaa xidigani ka khaldamay xidiga Watkins ee isagu 9 minute ciyaaray 4 taabasho ayuu sameeyay 1 shoot buu tuuray 1 gool ayuu dhaliyay shot on targetkiisu wuxuu haystay dibartii uu ku diiradaysnaa 2 baasna abawal la sameeyay man of the match waa la qaatay maxaad kale iga sugaysaa habeenada kale waa uga duwanaa libaaxyada saddexda kuwii dhaliili jiray iminka way dhuumanayaan habeenkuna muu ahayn mid u fiican Declan Rice 160 taabasho 94 baas waa dareemi kartaa waxa uu kulanka ka qabtay runtii bandhig heer sare waa uu soo bandhigay Foden isagana khariirada maabka hidkiisu sidoo uu kacsan yahay iyaduna waa ta halkan ka muuqata oo uma baahna marag madoon Jude Bellingham maamkiisa shaqada ugu adag qaybaha uu ka hayay waxay ahayd halbowlaha Holland ay ka dhaqdhaqaaqaysay waana ta u diiday isku xidhnaanta in baasaskoodu ay saxnaadaan la kala guranog la kala gowsanog ayaanu leenahay Todnas Falatasione yaa tiri Lions haddaba si gaar ah isu dul taagna goolkii Harry Kane oo isaguna taariikh ku abuuray Euro maxay uu ka dhigan yahay goolkani waa goolkii lixaad ee Kane ka dhaliyo bugbaxda tartanka Euro waana in ka badan ciyaaryahan kasta oo taariikhda tartankani dhalay waxa uu ka hormaray xidiga reer France ee Antonio Griezmann ka soo dhaliyay 5 gool oo bugbaxa Kane waa koobkiisii saddexaad ee Europe laakiin waxa uu ku guuldareystay inuu gool dhaliyo markii ugu horeysay sanadkii 2016 5 sano kadib ayuu dib isku saxay isagoo shabaqa ka soo taabtay Germany 2 jeer uu ka dhaliyay Ukraine kadibna Denmark loogu daray soddon jirkan weerarka ka ciyaara ayaa ku guuldareystay inuu shabaqa soo taabto finalkii ay la ciyaareen Italy iyadoo England looga badiyay rikoodhayaal garoonka Wembley qaab ciyaareedkiisa xagaagan ee Germany waa la dhaleeceeyay laakiin Slovakia ayaa uu gool ka dhaliyay wareegii 16 kadib waxa uu dhaliyay goolkiisii lixaad ee bugbaxa wuxuuna ka dhaliyay Netherlands oo sidaasi ku noqotay dalkii lixaad ee sidaasi bugbaxa ugu salaamo laakiin Jimmy Carragher ayaa dhaleecayay rikoodhadii lagu abaalmariyay England rikoodhahan ayaana lagu tilmaamay inuu ahaa mid muran dhaliyay garsoore Felix Sewer ayaa markii hore ka diiday gool kulaadka laakiin waxa uu bedelay go'aankiisa kadib markii uu ka soo hubiyay VAR difaacii hore ee England Jimmy Carragher ayaa hogaaminayay dhaleecaynta baraha bulshada isagoo ku andacoonaya inaysan rikoodho sax ahayn taageerayaasha labadan ayaana ku raacay go'aankaas uu soo jeediyay Jimmy Carragher oo uu sheegay inay fiirsasho dheeri ay u baahnayd haye iyo isgaadhay laysma gaadhin baan idin laysumana waramin Todnas Falatasione yaa England waxaad kala qaadaan lay Roqa saddexda libaax reer Tamaandho loo jirta waa la arki doonaa xubintu waa kariskii iyo kala haadintii anigu waxaan ahay tirike waa sidaan idin sheegay la kala guran la kala goosan laguna kala guulayso warba wixii horaha ka ahaado wabta u weynina waa axad inta ka horeysa sida ayaa maana Allah Smart Dental Clinic xarunta daaweynta afkiilku waxay kugu wargelinaysaa in ay ku samaysay qiimo dhimis aad u ballaaran sanad guuradii afraad awgeed adeegyada qiimo dhimista lagu sameeyana waxa kamid ah birta ilkaha oo aad ku xidhanayso oo kaliya $100 oo aan wax dambe lagu weydiinaynin haddaba qiimo dhimistu waxay soconaysaa muddo kooban dadka qiimo dhimista loogu xidhayaana waa ay kooban yihiin sidoo kale Smart Dental Clinic waxaad ka helaysaa adeegyo kale oo iyaguna bilaasha iyo sidoo kale qaar qiimo dhimis leh hamogaanin Smart Dental Clinic oo ku taala gudaha magaalada Hargeysa gaar ahaan agagaarka Hotel Cali Jirde ama markaad u dhaqaaqdo wadada dheer ee tagaysa xarunta dabdamiska inta aanad gaarin waxay ka soo